waxaan iminka soo gaarnay gabiley oo ah meesha caawa programka nooga qabsoomi doono iyo barnaamijka geediga dadaalka asxaab badan baa safarka igu weeraraysay runtii oo qayb ka ahayd asxaabtii gabileyna waxa weeyaan saasii soo wacay waxay leeyihiin war diyaar baan nahay war iminka idin soo gaarnaa saac magaaladan idinla joognaa barnaamijkuna caawa noo qabsoomayaa odayaasha safarka igu wehelinayay axmed maxamed cige iyo hanad iyo waxa weeyaan maano axmed عبد شكور سلامي ما أنت قبلي بين ودي جوجنا برنامج كينا يدين كي محمد عقا أيام بالعاود كلاقي بقلي أوكي جديد دالك بلدت كرير قبلي واحد الشيء دوتانا شير قبلي صاحب ودد قبا سودوين بدن إما كانوا هولكي سوقل دونا من قبل صاول عصا هذا مخرب سال ربع حوت الضباط في دنمو وحويا waxay noo starmay barnaamijkani geediga dadaalka iyo magaalada Gabiley maxay caan ku tahay niyow Gabiley حسيدة وعويان حتى وين لا سعودان حسيد بان حتى هول كدحده ku cuni doona Gabiley waxay ka mid tahay magaalooyinka ku yaala galbeedka Soomaaliland isla markaana marka Boorama laga yimaado oo ah magaalada koowaad ugu weyn waa magaalada labaad quruxda marka laga hadlayana aniga aragtidayda waxa waan oran karaa magaalada Berbera unba malaha marka wadadan bartamaha maraysa lagu qiimeeyo xagga wadooyinka iyo bilicda iyo quruxdana Gabiley waxa aan oran karnaa waa hadaan talabaad ahayn ku ugu horeeya ay ku jirtaa dadweynaha magaaladu waa dad aan dhibka iyo buuqa iyo jaclayn rabashka dad qaboweey Allahumma salli ala Muhammad business baa kala socda magaalada dadku way dhaxmaraan wadadan aan haatan dhex soconnana waxa weeye magaalada bartankeeda wadada marta ilaa iyo Boorama iyo Wajaale iyo Kalabayd iyo Hargeysa iyo intaas oo dhan dhulkaas oo dhan jidka isku xidhay weeyi halkaan imka maraynaana waa meesha Cali Xawaash la yiraahdo oo ka caana magaalada Gabiley isla markaana bal meelaha kale ayaynu eegi doonaa waxaan booqan doonaa marka hore rugta library-ga ama rugta kutubta ee magaalada Gabiley National library-ga qaranka ee magaalada Gabiley ku yaala gaadhnay xarunta library-ga Gabiley oo ah meesha caawa programka nooga qabsoomi doono mahantii waa goob dhalinyartu ay ku akhristaan waxa kasta sidoo kale xagga hoolka nooga qabsoomi doono barnaamijku waxa weeyaan barnaamij qurux badan ma sugi karo yacni insha Allah ilaa bacd maqribku noo qabsoomi doona todobada Axmed Seeka isaguna meesha waxa weeyaan iyo Maxamed Cige deenu dhexmashaaxnadii war la qaba xiisa male kulli xogto dhan waa la idin siiyay saacado kooban ilaa saacad iyo badh baa inooga hadhay waqtigii barnaamijkeena caawa halkan baynu ku wada sheekaysan doonaa barnaamij runtii aad xiisa badan u leh oo xog badan aynu ku wadaagi doono weeye ha maqnaanin يرى النقود كثير قاضي العسيس سكرو سناني قيبتنا waxay ahayd qaybtii wax akhriska ee maktabada Gabiley National Library insha Allah waxa weeye deewad aragtaan si u design gareysatay qaabka loo diyaariyay wahantii dhalinyar ay ka muuqato inay ka go'an tahay wax akhris library-gani waa library-ga Soomaaliland ugu weyn sidoo kalena ugu quruxda badan yani si u qalbaysan yahay caawana meesha ay madashu inooga qabsoomi doonto halkan bay naga xigtaa iminka geli doonaa waxa weeye iyaduna waa xarun kale oo iyaduna aad u qalbaysan waxa weeyaan iyadana isha waan diisi yar qishaya moogta qaabkii ay kaanaysa iyo nabariya واو كان مسرحي هذا الرياضة دفتها وحويان وحرون آدو ديزاين جريسون Gabiley National Library وحويان وحرون يعني لو ديزاين جريي إن شركة كقب صومان شيء وحاجة اللي شو عبد العزيز وكم إذا أصحابته Gabiley عبد العزيز سوده صح إيه عايز إيه هذا ما استطاع
waa maktabadda ugu weyn uguna quruxda badan tahay quruxdana ka reebin yaa haddii weyn taanay qurux lahayn cidna ma timaadeen moogta laakiin quruxda iyo qaabka loo design gareeyey xitaa qaybta shaaha insha allah waa iska shaahi doonaa cafeteriga haa waa well design yacni waa environment loogu talagalay dhalinyartu inay waqti ku qaadato wax ku akhrisato ku shirto macal hoolka xagga sare waxaa lagu tegay dhalinyar shiraysa buug baa lagu falanqeynaya wow Gracias.